saylada xoolaha ee magaalada Burco waa saylada ugu weyn wadamada ku yaala geeska Afrika waxaana la keenaa kumanaan neef oo isugu jira ari iyo geel kuwaas oo sanad kasta iyo maalin kasta lagu kala iibsado saylada Burco iyadoo xoolahaasi kala duwan laga kala keeno dalalka Somaliland, Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale Kenya. marka laga yimaado xoolaha lagu kala iibsado saylada Burco, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland waxay saylada ka dhistay xarun caafimaad oo lagu daryeelo isla markaana lagu daaweeyo xoolaha kala duwan ee la keeno saylada Burco. xaruntaasi hirgelisay wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland muddadii uu joogay wasiir Siciid Sulub Maxamed. isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka Togdheer Sayid Cali Rashiid Maxamed iyo sidoo kale maamulaha saylada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi ay halkaasi ku diyaariyeen shaqaale aqoon iyo khibrad u leh daaweynta iyo sidoo kale daryeelida xoolaha kala duwan ee laga kala keeno dalalka Somaliland, Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale Kenya. iyadoo xaruntan caafimaad ee lagu daryeelayo isla markaana lagu daaweynayo xoolaha ay wax weyn ka bedeshay saylada Burco maadaama markii hore aanay jirin xarun caafimaad oo lagu daryeelo xoolaha Burco. أنا أحسدوي وسارد حنانة حلا قبل كتقدر مشاريع كسرعة السيلة يو شقة وسارد السيلة كقوته مال في عام بمرسا نحرم بكف كفرا مشروعي بيرجع ويتقدم معي أي مال جلسي أفريكان ديفلومات بانك يضع يقط صوم مرينسا مشروع واحد فلسي سيف تشيلدرين يو سارد حنانة حلا يو سكاشنية واحد لو سمي حرون تري مكان يشوفنه وفائدة وين وكانتي وسارد قيبة السيلة ما دام أي سيلة هاي حرون توجوين جيس كأفريقيا سيلة توجوين جيس كأفريقيا وسارد واحد سيسميه مدوين ساويت المشروع أساس كيسي يبقى هي صح كتمي حاجة وسارد حنان حولها إن سيلة دي الهرم ريو إن سيلة دي اللي قسم يو حرون مركا مشروع ساسو كبلامي مشروع لما فائدة وين بنوصل كوريي وحرونتي واتر مات شغالة قيبتي حوالي لوجود ويني ويترتا قيبتي سيرتيفيكيشن الشهادة قدو فيها حوالي لوجود بحني وحكلو ترى أديجي بدن أو كم بدأ إن فيدور كنا ضافت دي يلا إلى ليه سيرة ده لما روحي حنونا ده شيلين تيجي وحي لم يكيني إن حريه حروين كحوالي لوجود حرين الكرميرو ولا نظيفيه أو شيلين تيجي وحي دي حوالي كيني لقى نظيفيه marka dhamaan adeega soo xaruntan baa laga qabtaa wixii xoolaha xanuunsanaya xaqan oo dhan waxa la keenaa xaruntan saylada marka shaqada aad bay muhiim tahay waxa kale iyaduna muhiima inaan soo kordhinay sanadkan xoolihii qalliinka in lagu sameeyo baaritaan in lagu sameeyo dadkana wacyigelin baan ka siinay marka xoolaha ugu muhiimsan ee qalitaanka aan la ogolaan wax kamid ah koow neefka dhalaya dhammaan dadka xoolaha ka ganacsiga way ogyihiin oo neefka dhalaya in qalin dhakhaatiirtuna way eegtaa neefkii bukaay xanuunsanaya ee dadka xanuunka u gudbinaya isagana waa la qabtaa waayo waxa jira xanuuno dadkii xoolaha kula gudba marka si looga taxadaro waa in neef kasto buka la qabto neefka yar ee aan wali qoran dadig isagana lama ogolaan la qolo waayo maxaa yeelay wax yaraanaya حوالي دلي ترى كوا جراني مركز ساوي صدحدا قيبات بحولها قلين كذا لما وقلا سيد وكوا يقلني دتكوا هيسان خاطرت وسميسا مركز حلقة نقطة إلا تجو كوانكا إن دخاتير وشكتا وحولها قلين كمركز الوص سمية يجونا إيجا مركز هاوش أصيم كسيف عم بينو سعتها دردر قلنت دي يوحي كلام وانودنا وحكلو شرتي يزنا إن ويجن قصصا سمعنا السيرة ده waxaan ka sameynaa ololo weyn oo nadiifina oo aniga dawladda hoose ka shaqeynayna dhakhaatiirta wasaaradda dawladda hoose ka sameynaa ololo weyn oo nadiifina oo shilintii iyo wixii ka jira inta lagu ganacsanay hadalka oo dhan waa la nadiifinayaa dhakhaatiirtuna way buufinayaan